somalilan barnaamijkan daawadayaal sida aad la wada socoteenba waxaanu ku soo qaadanaa dadka had iyo jeerba waay aragga waqtiyo dhowr ah amaba dhowr jeer ah oo barnaamijkan aanu idiin soo gudbinayn waxaanu ku soo qaadanay daadoodu ay tahay 60 jir iyo wixii ka sarreeya hase ahaatee barnaamijkaasi waqtiyadu baxay dad fara badan oo dhalinyarada magaalada ka mid ah ayaa waxayna weydiiyeen maxaa barnaamijka waay aragga ma waxaad ku soo qaadanaysaan dadka waaweyn oo qura dhalinyarada laftigeedu meelo fara badan ayaa ay waay arag u tahay sidaas daraaddeed barnaamijkan waxa uu isku taxalluujinayaa hadda iyo wixii ka dambeeya dadka waaweyn iyo dadka dhexe iyo dhalinyarada laftigeeda intaba in wixii waaya aragnimo ay u leeyihiin ay halkani kaga warramaan iyo wixii taariikh ahaan laga faa'iidaysan karo dhinac kasta oo laga eego barnaamijkan waaya arag toddobaadkan iyo ugu horraynba waxaa marti noogu ah cabdiraxmaan aadan cashuur cabdiraxmaan waa nin suugaanyahana oo abwaana oo suugaanta sameeya gaar ahaanna dhinaca gabayada ayuu ku caan yahay waxaana jira dadka suugaanyahanada ah amaba gabayada ku caankahay in ay meelo fara badan wax ka sameeyaan oo ay markaasi waaye arag u yihiin marka ugu horaysa markaa cabdiraxmaan waxaan leeyahay daadaadu waa imisa horta daadayda maxamedow dee iminka tirakool kuma iyo miyii ku dhashaan waxaan malaynaya inaan deyrtii caana qabooba dhashay intee gu ayaa ka dambaysay deyrtii caana qabooba markaan isu geeya waxaan ku wadaa inay dhowr iyo soddon weyn tahay dhowr iyo soddon weyn alla ilaah waa erey suugaaneed bal anu soo noqono waa hagaagay dhinaca waayo aragnimada intii aad miyiga ku dhaqnay ama aad ku noolay maxaa aad waayo arag u ahayd muddadaas miyiga aad joogtay maxamedow waxaan waaye arag u ahaa ti oo lagu sameeyo miyiga qabyada oy dumarku araax tagaan oy maydhaxda u araax tagaan oo kol ay qabyadan kale cawska maadha maadhweyda ay tan u araax tagaan caws gorofka oo taa laga sameeyo markaa qabyadii la dhisayay kibdihii cawsaskii qaar intaasoo bee kala nooca ood quruxda yaabta marka aqalada sidaa loogu dhiso saamihii sidaa laysugu samayn jiray jarcada la odhan jiray waan soo gaadheenoo waana xakab iniba nooc tahay dhigahoo sibaaq la mariyey iyo asal midabyo kala gaara leh markaa waxaan tiro ay dumarku qabyada sidaa u sameeyaan waxaan kaloon soo gaadhay tio masalanba xooluhu markay dhalaan dee caanaha ay gelinka hore iyo gelinka dambe la dhayloo oo dhiilahaas booyinka subag halkaa ay tirsan yihiin waxaan kaloo ninkana soo gaadhay tio ay xoolihiioo dhalay aan wax subagaha lagu dhaashada aan lagu haynin nin qof waliba neefkii u dhalay caana diiqay oo daasada lagu qaaday xoolaha waxaa lagu lisi jiray gorfo iyo dhiilal yaryar geel iyo waxaan arkay lagu lisayo daasado markaa waxaa lagu qaadaya halkii lagaga qaadayay sibraarka caanaha lagu shubayeyna caagad lagaga shubayo markaa dee markaan aad baan ula yaabay waxaan kaloon arkay dadku waxaa qurux ku lahaatay horta midabka qof cid wali waxa qurux ku leeyahay si aan loo dheliyey dadkii oo saluugay gaar ahaan dumarkii iyo raggu isma dhaamaan bay kuwa saluugay sidii aan loo dheliyey oo midabkii aan loo dheliyey ay saluugeen ilamada kale dhafoorada xiirteen baa goobiyahan dhoorada la yidhaa u eegaaday iyo hablihiiyo intay wax ismeeyeen aanad wejiga ku hayn karin qof barasi ku dhacday dee waad naxaysaa markaa sidaa u eegto aad naxayso qofkii shalay quruxda badan hablihii midabkii ahaa ciidoolaha kii madow dhalaal midabadii saa kii cadaanka ahaa cadaanka casaanka la dhansiiyey midabadii saa u kala duwanaa oo si noqday dee dadku waxa xanuun cadaan la yidhaabaa ku dhacay haddaba iscaddee anu waxaan waa la buufiyey baa laygu yidhi markaan magaalada yimi markaana waxaan maqli jiray markii hore baabuur talaa la buufiyey waxaan arkay dadkii oo la buufiyey dee wax cusub oo aan aad ula yaabay markaa maxamedow markaa maxaad is leedahay dhibaatada intaan leegay imaka ku timid beddelkaas aad sheegayso dalkii lifta dee waxaan is leeyahay maxamedow horta adduunyadani ilaa maalintii la abuuray sidaan culimada horta hoosumay soo socotaa waa sabin aakhirkana waxaa la yidhi waxba uma kordhaan wuxuunbaa kasii dhaca dadku
ده أقول تود يعقل جود كل ما ميل بيجوا هذول لكن خاص صار على أصلا ده ما كان يلبي قالة قوية وكركوا الدرجة دي حولها يواصل مرة تكوي الدرجة حولها يواصل مرة حتى يطلق فوت طيران يجي كانوا ضعف ما كوي مرة يحق عقلي طلبات وحي ما كان ضعف وكي ما ضعف هو اسمه طياش أو خروج سعود في سلياني هذول قفوا أي سوق غير هالي هي والدكتور ضم بيسمونه نقدامه حدي لا يا وصلني ما لا يابي وقفوا إلى لا يابو يسكدايا لكن هذه ما تروح الفاصل على نقشط الصب هذا كنت يعني نقطة يلا يا ابنك هو إسلام كسيهمية يا وقف كسيهم كرنا يا ما كان هذا كل قبيل يرسم ويير كا بليشان ويير كا صار يا markay dib ugu noqono hadalkaagii hore waxa ku jirtay misalan barigii hore in dadku aqal Soomaali ay sameeysan jireen marka qaybayadu kala dhigtay sharax saafiya oo waafi oo markaas dadku ay ka baran karaan miyaad ka bixin kartaa waxyaabahaasi oo aqal Soomaali uu ka koobnaa iyo mid kasta halkii laga soo qaadi jiray محمد هو كم حكرا انت اي تايد مقرسا انت اقوم كاقانو مثلا بي قطا الى الحوارها مقطع عام سي هاي يوها waxaan si xigabaya yaan ku taxay bari Soomaaliga baaxil kuma iyo dadka Soomaaliga saboolka ku abaanay hadana waan isku dayday markaa magaraysa raqibo wadagi markaa sidaasoo la yiraahdo magaceeda gunaanad way farabadnay laakiin intay dhaqanka aan kaga hadlayay yaan ku soo qaadanaya Allahumma salli ala Muhammad waxaan in dhaweydba gabay waan ka tagay iyo wowgi ma guubaabin jirtay iyo luuq goboldigeedii waa taan ka gaabsaday tan iyo galihii dayreeda way iga gafoobeen kuwaan gaarka u lahaa genkaysa dhaqankii bay ka arradeen inaan garoorow annaga xadhkii laga laastay baan geleele faayaa goohayga maqal aragta waa lagu tiriyaa garhka suuraday goodiga jufaad gabilay baasheeda gowsaxun ilaa koda yariya dawya ganafkooda gamaadiisa qabow iyo rabley gaafkii darar weyne gilo iyo ararsiya ilaa godantiisii jeed gahayr weyne goonyaha higleeda gurada mooyaale gudbanihi afmeerkii ee laagalihii xaabaale go'o iyo bannaanna iyo maydh xudaya geestooda inta geed xadhaadhle iyo seel ama galool furiyo bari iyo galbeedkii dhulkii guulla lagu beeray gorof iyo sibraar laguma oga goodix xidhadin galaan miridhle iyo daasad bay gocay ku maalaan looda giir kale iyo daylo iyo gubanridii joogtay giddigeed nimcoolay intii geli ka foofaysay markay soo gobsheeyeen baskay kula buculeeyaan garoodh laguma shubo dhiilihii gocoyada ahaa guunyadoo dhashaan suba karuur lagu gasaasay tirsankii gammaankii ka madhay gobolladeenni gidta mooyihii iyo majra kibis ganaankeed ma geeraato naag buuxanaa soo gundhinaysa hablo guudka loo dabay xariir uma garaystaan kibad kulama guusaan dhabeelgeed duleedkaa isku jooggun iyo baar farshaxan gaari ku aastayso toddobaalo cawskorof shallaho geedsan iyo maadha jarca gadafle googoos shallada gogol darfooleya alool gudaha lagu soo dadbiyo weerka lagu gaafo alool gudaha lagu soo dadbay iyo weerka lagu gaafo badhooq midaba gaara leh tubsayana ma gargoor duuban gembis dhigaa iyo loo xakabaho jil lagu geejo ka gabooba shaqada kuwii gubalayn jiray gambooleydan joogtaa samayn garaba maayaan dumarkii golaha buuxin jiray ku cunna soohaan shan kastoo dareemadu goodo oo geedna marahoobo ummaa kama guran kaymihii goosiga lahaa gashaanti iyo doob kuma kulmaan giga sarbeebeed murtidii la googaysan jiray way gabaabsiday garcadaadigii dhallinyartii way isla gigan yihiin gawo baan ka joognaa hiddaa gebi ahaanta inkastuu garaad xaalufkani uunka wada gaadhay xigmad guurku soomaalidu gaar u sii helay gandiidulcunya iyo wax kale idinku jeeyaaba goobaare iyo wiil caqligii idinka guuray waxaan gobi ku haasaawinbaa iyaa golaha keentaa gudniinkaaba hay-ada shaxangooshkan maanta waase guriba cali oo islaam gaalu taliyaaye xushoodkii maxay naga gedbiye garashadii maanka war sheekada bar baa laga gudbaa ku alla saaraay googarada faallada maxaa idinka gaadhsiiyey faasuqa habeenkii gudaa gaarkan loo dhigaye gedabaad ku baalgu waxaad maanta garan weyday balse ku gamuunkii katibay kuweeyay beebeegu sufahada ganjeeluhu ku yaal haysta guursaday ee kuweeyaga ma geeyo kii ku fragaqaayo hawshada kun baan damaqsan niceeb haddii aad ka gubanaysa ku condhada ka badan meel intuu daad ka soo galay goblan talaa duunay maxaa beelaha garabkeena ha yeeshee dadkii waxaa gundhabay ganacsi sheedaa gidaaradan waxa laga daawadiya gelista fiidiyoogu siday noo galaafteen qof ogi gocay adowgii ilbaxnimada gaadh iyo higsiga guuldarru dhalay gabdhaha la buufshaa sidii gaadhi baaliya gayaankoodna waa kaa dhukureen labada geesood geefka iyo macsiyihii bulshada kama gaboodaan wanaaggaa xumaha kaga gedbaday gacal la reeri garba haysaysaa sidii gaaladiiyo waxaase ubadka gabay waalidkii gacanta hayn lahaa
kuwii lagu gardaashay dalbaha go'ay ka raacay garow ila ku haray waa u halis goolida caweede garaabada intay ruugayeen guriga loo dhaaf waa yeelka gabood falay ilmuhu gabi ma jeedeen gabalkii dhacba maatidii goosan baa maqan oo qaar xumaanta u guntaday gulcu ku leexshan munaafiqa gadaafaha dhex wada kama gun gaadhaan ninka xaqa ku guubaabiyay gocol haysta geesiga waqtigu waa ninkii hasta giniya gartana lagama helo had iyo jeerkii gunaasida ka gundaal u baahani xumaan kaba gurguurtaan kolba kii guntiimada haya garabka saara go'aankii ka dhimay odayadii loo garwadaha gundahay iskaga duuban yihiin lababa geestood gaban yar iyo nin weyn iyo haween waa isgarabiya sirtii odayada u gaar ahayd way gallaad warkana kama guraan ulaalamka shicibka goolmo uma gala wasiirada niman gaadhi beedwada tujaartuna miskiin gaajo qaba uma gargaaraan dan yar gaga cidlaa lagaga tegay guurtii yaray seerma weydadaa gamashiday iyo giganaha leexday meerahan godiidii qaxdigu waa gefkaa yimi waa duni macaankii guray oon goroor ku laabnayna gebtuunba hadhee sharaf horaa loo gunaanay sifooyin guud markaa dadka gabaygaasi marka laga yimaado qaybtii hore ee aad u sifaysay oo gabaygana meela kaga jirtay oo aan filayo sida adiguba aad tilmaantay inuu yahay gabay waaye aragnimo oo weliba dhinaca dhaqanka qaybta ugu badan ay ku saabsan tahay intaanan markaa aynaan u gudagelin gabaygu siduu adiga kaaga yimid markaa maxamed oo markaan waayaha aan sidaa u eegay iyaan haddana waxaan arkay dadku wax yel xumaysto afkaa laga dhowri jiray waxaa jira waxyaalo u kala soocan islaamka iyo gaalada la tashi diinihi kama dhexeeyo haba yaraatee islaamka iyo gaalada islaamku carruurtooda siday odhanayaan iyo siday odhanayaan iyagay u taala diintoodana uga warrantay siday odhanayaan dee sidan amba dadku wax dhaqanoo dee ay ku adkaayeen ha noqoto amba islaax waxay moodaan ha ahaato de magaraysaa sidan magaraysa dadkii marka waxaa leedahay dadkii hore ayaa ka dhaqanad ka kuwan maanta marka waay aragnimo waxaan u ahaa dadkii hore dhaqanka ku adag kuwana wayna dhaqankii ay ku adkaadaan ha waayahay cabdiraxmaan waxa aad ka soo sheekaysay oo maadaama barnaamijkeena uu yahay waaye arag wax weydii la yidhaahdo maadaama wax la weydiinayo qofkii waaye arag dhalinyaro iyo waayeel nin weyn oo dee biciro leh uu doonaha ahaa in dadkan yaryar ee soo kacaya iyo kuwa reer magaalka ah ee aan miyigo kala tusaalahaan waxba ka aqoon ama hadba meeshii looga sheekaynayo kii aan waxba ka aqoon uu ka faa'iidaysto waxaad cabdiraxmaan soo tilmaantay gurigeennii hore ee dadkeenu dhaqan lahaayeen oo ilaa imika ku sii hadhay meelaha qaarkood miyigeena waxyaabo laga sameeyo oo aad tilmaantay baa jirta oo dadkuna qaarkood aanay maanta garanayn miyaad sii faahfaahin karaysaa tusaale ahaan cawskan waxaaba laga yaabaaba inay dooga iyo cawska qaar isku midba u yaqaanaan miyaad u kala saari kartaayo tusaalaan loolkan iyo dhigtan waxa loo kala qaadi karayo si qofkiina uu kaaga faa'iidaysto miyaad sheegi karaysaa maxamed intaan laftaydu ka aqaano waxaan u kala qaadi karayaa masalan be waxa weeyaan horta cawsaska waa dhowr nooc waxa jira nooc jeex baa la yidhaahdaa oo cawska dareemo caddan iyo bahashanaa laga sameeya waxaa jira ku xariira oo laga sameeyo dee maadha iyo magarasa noocyada caws korofka oo magarasa dee cawsaska aad u gergergedisan masalan be dareemadeennana iyo dhowr nooca oo mid tima haween la yidhaahdaa waxaa la garagaraa la yidhaahdaa intaasoo nooc bay u kala baxaan dufkii masalan be badhooq midaba gaarale duf sayan ama gargoor duuban baan inu gargoorka waxaa la yidhaha gargoorku masalan be waxaa laga sameeya cawsaska xariirka waa doog aanay cuni karin xooluhu aad buu u adag yahay waxaad moodaa caag baad moodaa masalan be inta badan wuxuu ku badan yahay hawdkaasu ka baxaa dhulalka tugaga ah iyo ka baxa mugta markaa dufku waxa la markuu sayan yahay oo waa daad marna madaxyaa la yidhaha inta saa lasugu duubaya saa loo xiray badhooqda waxaa la yidhahdaa xadhkaha dufka nudka looga dhigee marka iyagii saa loo soo daayay iyo dufkiina saa loogu taxayo markaa masalan be dee intaasoo qaybood bay iyo kala leeyihiin oo magaraysaa noocyadaa faraha badan leh cawsyadaan usoo qaaday magaraysa 7 la yidhaha 5 la yidhaha 3 magaraysa googoos isku joog waa intaasoo kabad shalleeya magaraysa tu baraaleeya doo magaraysa inkastoo aad dhaqanka laga yaqaano ninkayga inay dee waa intaan jiray magaraysa meel miyi iyo magaalo u dhexaysan joogay aanu asalka laftaydu markaa laakiin waa caynu yaqin iyo cilmi yaqin weeyaan
intaan degta ka maqlay baa aad u fara badan da'deeduna ma yaro deewaaniga inta badan jiray baan oo doqon in weyn jiray wax weydii baa la yiraahdaa marka odayaashan ku xiga moogta misalan ba aad u waaweyn marka oo markaan in waay arag wax ka soo gaaray aabahay badha awowgii baan ka aabahay ka soo gaaray inna waan soo gaaro marka boqolkii waan dhaafay ma imika xagga markaad ka eegtaan marka wixii baan aniguna markaa intii aan ka gaaray baan isugu soo looriyey dadku waxay u baahan yihiin markaa inay soo maraan dhulka miyiga oo wixii magarasa mar ay arkaan horta sheekay inaan ku bogan karin baa laga yaabaa waxyaalaha qaarkood oo aad u fara badan imigata halkan ku taala dareemamadooda garagaradii lafteeda waan ku arkay maadweydii baan ku arkay halkan markaasa deerka idaacadda dhexdeeda markaa dadku hadday laakiin dhaqanka markaan la doonaynin dadkooda magarasa way ka sii socdaan hadday se imika ku sii socdaan waaba dad badan oo iga yaqaanba ciidda ka badan aad iyo aad iga yaqaan dhaqanka oo u dhigdhigaya oo bismillaah waxaad yaabto quruxda dhaqankeenu qurux buu ahaa boqolkiiba boqol meel aanu dhaliilo kumaan arag marka hadda maxamed waa saa dadka odayaasha ee waaweyn ee da'dahay aad kuyaad soo gaadhay maxaa aad ka soo gaadhay waaye aragnimadoodii ee dardaaran ahaa اللهم صل على طيبان مالي يري wuxuu saddex aabahayba saddex awowgay baan ka soo gaaray saddexna aabahay baan ka soo gaaray saddexna anaa soo gaaray wuxuu yidhi saddex awowgay baan ka soo gaarayoo wuxuu yidhi xiloo gayaana xooloo geela xaajoo garcadaadiya saddexda awowgay baan ka soo gaaray saddexna anaa soo gaaray wuxuu yidhi xaajo garmadooba xiloo dhabanoo inanta qurux badanuna xoolo lacaga anaa soo gaadhay waxa soo aabbahay baan ka soo gaadhay saddexna wuxuu yidhi anaa soo gaadhayoo wuxuu yidhi xaajo kuraya oo kuraygu talinaayo xiloo dhadigoo mar hadday dhadig tahay una magarasaan wax kale loo eegayno dhadig iyo lab un la sugayo xooloo dhula saddexdaana anaa soo gaadhay markaa imika masalan badda waa tala waa kugubarad iyo kugu soo boode laakiin imika haddaan magarasa ka sii diyaar garoobo wax dee badan oo odayaasha ka soo gaadhay baa jira odayaasha wax kaloo ka soo gaadhay waxay ku yidhahdeen imika waxa la yahay hebel sidaasi u jeeda hebel baa sidaan soo yidhi hebel waxba laga waxay ku yidhahdeen odayaashii hore oo aan ka soo gaadhay waxay yidhahdeen qofka waxaad maqasho wax ugu qabo ninna nin ha u maqlin adigoo aan ninkii kale aan waxba ka maqal markaa eeg degdegu lugooyadu leeyahay bay magaraysa halkaas haa oo wixii magaraysa war wixii aad ka marag furaysa waxaad og tahay oo aad xaqiiq waqti raggii hore waxay odhan jireen markaad war u sheegto ba aan siga hubsaday odhan jireen imika hebel baa caynkan iyo caynkanoo aabihiiba reerkooda caynkaasoo asalkoodiiba xumaaba rasmada lagu qaxayo waxba lama hubsanayo dadku waxay caayaan qof aanay arag imika waxaan caayayaa nin madaxaan iska caayayaao haddii lay weydiiye ninkaa weli miyaad sheekaysatay mabaan aragba gebigiisa soo tari markaa qofkii haddaanan aragna waxba kama sheegi maba aqaani maxaan ka sheegi waxaan ka sheegana ma aqaan mar haddaanan garanaynba qof marka waa waxyaalaha badan ee imika magaraysa lugooyada faraha badan ee taala iyo caynkaasoo meedana anigoo imika tio lagu caayona laygu yidhahda ninkaasi waa tuug oo isagii aabihii baa tuugaa oo ninkaasi waa tuug ana ma hubsanaya imikaan odhanaya aniguna aan faafinaya haddii la yidhahda maxaad ku caddaynaysaa ninkaasi waxaa caddaynoonahaya miki laakiin waa hubsimalaan waxaa la yidhi dee hubsada iyo hanfada waa walaalaan markaa dadkiiba saas waxaad muddaynaysaa u badan yihin marmarka qaarkood baad is odhanaysaa ma runtii ma beentii baa dhegeytay haddana dee adugu kolley geed walba ragga lagu hoos joogaan dee nin raggi geed walba uu hoos jooga laakiin haddana waxaad magaraysaa waa shucuurtiisay dee waayu u badan yahay dadkeenna hiigsi baa dilay oo dee waa xaggaasoo loo socdaa magaraysaa qarqoon waxay ku yidhi dhaqanka yar qaaradaha yurub baa ku jirta gabe magaraysaa markaa haddaba dadkuna intay hiikacsan yihiin dee ninkii hu aanad lahaynin dabadaada ma qariyaa markaa markaad higsanayso nin
aqal uu dhistay ninka hebel aqalku dhistay baan doonayaa inaan galo moosh macquul yani aqalku kuma qaranayo aqalku ninkaasi dhistay adigu buul yar iska dhisa hadii kale waa biyaro ma garanaysaa xayrabada intaas ka waabatay iska kale ma garanaysaa nin weyn gurigiisa qaaday bay oran jiray odayaashii hore de markaas aasaan leeyahay maxamedow waaya cabdiraxmaan goormay kugu darnay maxamedow dee horta meel goor aan darraynba soomaan marin waayo waxaan ku garaaday suusiya maxamed siyaad barre sidaan kabuhun baa xusulka ku sitay ilaa xataa al'aan aan soo gaadho imika laakiin inkastoo waan ka baxaynaayo dee dawlad baynu leenahay laakiin ma garanaysaa dee waxaa la yardaayeen dadka waxa wada gaadha cadaalad ee wax dee loo dhiidhiiba ma wada gaadhaan markaa horta nabad iyo macaan iyo xorriyad iyo ma garanaysaa dalbalaarsi mayna xorriyadoo caaq oo dhammaan lugay adiyaan magaalada haddaan doono meeshaan doono maraya oo berigi hore gaari intaan gaari soo hara anuu gaari la socda oo safarunba iyobaa laga soo dejiyey goormaad timid unbaa laga yimid mabaan iman unbaana nayidhi xagan ka imid soo nin gaarigan la socda imika marka waxyaalaha fara badan baa jira marka keedkii imika aniga cabsidii igu dhacday berigaasi nin dayaysan baan weli heedida galaayuuska gabay gaarhiye ku jira aniguna sidii baan weli waan dayaysanahay inkastoo nabad iyo magaraysa xorriyad iyo dawlad iyo magaraysa nimco ku jirno waan didsanahay weli maxaad malay maxamed ma haddaan idhahdo magaraysa gooraan darnayba soomaan marin dee waaba gartay daawadayaalkaasuna waxa uu ahaa cabdiraxmaan aadan cashuur aan dhahdo cabdiraxmaan cumar cashuur barnaamijka waaya arag iyo toddobaadka بسم الله